بسم الله الرحمن الرحيم مقعي ودكتور محمد إبراهيم دكتور معروف maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo toddoba hab ama toddoba qaab ee fududeynaysa qofka inuu uur qaadi karo si dhaqsi ah toddobada habka ugu horeeya waxa la dhahaa preconception check up yani qofka inay check up sameeyaan labada qofba inay isqaadan karaan dhiig ahaan gabadha inay check up ku sameeyaan caafimaadkeeda waxyaalaha laga fiirinayo waxa kamid ah toxoplasma brucella wix la xiriira infectionada noocyadooda kala duwan PID ga oo kamid yahay taas oo keeni karta uurka gabadha inay qaadi wayso oo dhibaato ay ku noqoto inay uur qaado tan labaad inay gabadha ogaato cycle-keeda time of cycle inay ogaato cycle-keeda macnaheedu waxa waaye inay la socoto xilliga caadada ay ku dhacdo inta maalin caadada ay haysato inta maalin caadada ka maqan tahay normally caadada waxay maqan tahay 28 maalin 28 kaas maalin oo caadada ay ka maqan tahay waxa jirta marka fursad ah maalmo ay gabadha uur qaadi karto maalmahaas fursada waxa la dhahaa ovulation time la dhahaa maalmahaas taqriiban waxa waaye maalinta 14aad waxa la dhahaa ovulation day la dhahaa ovulation day-gaas marka waxa jirta range oo maalinta 12aad ilaa maalinta 16aad ee caadada ay ka maqan tahay waa maalmaha fursadaha ugu fiican ee gabadha uurku ay ku qaadi karto waxa kale oo jiro marka maalintaas maalmahaas hadii qofka ay saksiga maaragtay ay sameeyaan waxa dhici karta gabadhaas inay uur qaado waxyaalo ay dadka iska dhaadhiciyaan jiro oo ah markii gabadha caadada ay ka qubaysato maalmaha ugu horeeyo ama intaysan caadada ugu dhicin maalmaha dambe inay uur qaadayso fikradahaas kuma cad buugta caafimaadka jaaniska saddexaad ama qaabka saddexaad ee ugu fiican ee gabadha uur ku qaadi karto waxa waaye markii ay isku tagaan iyada iyo lamaanaheeda gabadha inay sariirta ku sii nagaato ilaa muddo waa inaysan kaadi heenin waa inay ma aragtay sariirta ka dhaqaaqin isla markii ay musqusha galin sababtoo ah hadii isla markii musqusha ay gasho ama isla markii ay dhaqaaq badan ay sameeyso back flow waxa ku dhaca spermkii inuu hoos u soo dhaco gabadhina fursadii uurka ay ka yaraato qodobka afraad waxa waaye ma jirto hab la isku raacsan yahay ee uur lagu qaadi karo ama qaab la isku raacsan yahay ee lagu sameyn karo galma ee gooni ah ee uur lagu qaadi karo hab walba oo labada qof ay lamaanaha iskugu tagaan xilliga ay isku baahan yihiin uur waa lagu qaadi karaa haduu Ilaahay uu tala galay marka waxa loo baahan yahay kulan xilligaas uurka la qaaday qaabka kale waxa waaye do not overdo waxa waaye inaan ku celcelin saksiga yani dad waxa jirta dhahay ovulation days ka maalmaha ay fursadaha ay caadada maaragtay ovulation ka oo time-ka la qaadi karo uurka saksi badan in la sameeyo dhahayo waxay keeni kartaa fursad ma jirto ovulation time in saksi badan aad sameeysid wax badan oo maaragtay uur ah ma keento hadii hal mar aad sameeysid sida caadiga ah shahwada nin qofka ragga ah 5 days waxay ku jiri kartaa maxay xubinta taranka haweenka fursadna way keeni kartaa 5 days gudahoodaas inay ma aragto uur qaado waxa mid kale waxa waaye oo lixaad in qofka exercise in ma aragto niyadiisa ka saaro wax stress full of stress in free of stress in ka ahaado oo wax ma aragto niyajaba iyo ma aragto stress aysan ku jirin sababtoo stress wuxuu kamid yahay waxyaalaha emotional yareeyo qofka inuu ma aragto xataa dareenkiisa waxyaalo badan yareeyo kan ugu dambeeyo waxa waaye qofku inuu ku noolaado waxay dhahaan healthy life nolol caafimaad leh inuu ku noolaatid nolol caafimaad inay ku noolaato waxa waa exercise inay sameeyso gabdhaha exercise inay sameeyaan waa fiican tahay laakiin waxa la diidaa exaggerate exercise gabdhaha ordooyinka iyo marathonka waxa sameeyay iyadana fursadaha uurka way yaraataa sababta ovulation time-ka aad u yaraado laakiin exercise normal in la sameeyo hadii gabadha smoker tahay oo sigaar ay cabto inay sigaarka joojiso sababta progesterone level-ku aad u yareeya iyadana ama estrogen level-ku aad u yareeya fursada uurka ka yaraanaysa gabadha mar walba oo la guursado inay qaadato folic acid vitamin waaye wuxuu fududeeyaa in uur la qaado hadii ay uur qaado saddexda bilo ugu horeeyna waa la qaataa asna spinal bifida waxa la dhahayo ka hortagtaa intaasan ku soo gabagabeynaa toddobadaas qaab aad u mahadsantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh